hadda waxaan akrinayay commentayaasha walaalaha ay kasoo dhigteen videogii kan ka horeeyey oo ka hadlayay sidee ku noqon kartaa millionaire. walaalo badan waxay ugu dhaheen wariya cali adigu millionaire mata waa adigan dhahay sidee lagu noqdaa millionaire. walaalayaal anigu waxaan idin dhahay dhalinyaro ayaanu nahay, waxaan idin tusay oo aan idin sheegay wadada ugu fudud ee aan ku noqon karno maalqabeeno. waxaan idin sheegay in haddii aan wax urursano kadibna aan ganacsi yar ku furano, yacni ganacsi annaga noocaas aan ku furano, in aan meel gaarayno, in aan hantiilayaal aan noqonayno, in aan gacanta sare noqonayno intaan gacanta hoose noqon lahayn. qofkii qaadanaya ha qaato, kii ka teganaya ha ka tago, asagay u taallaa. sidoo kale buugga aan meesha kaga hadlaynay oo ahaa ninka ugu taajirsan magaalada Baabil, waxaa lagu tarjumay Soomaali. walaalaha commentiga sidaas ku sheegaan, runtii anigu ma sheegi karo maktabadaha laga helaya asagoo Soomaali ah, laakiin Muqdisho haddii aad joogtid oo aad ka raadisid waxaan hubaa inaad ka helaysid. walaalaha ka mid ah wuxuu dhahay ami arrinta bakhaylnimo noo keentaa. taasina waxay soo xasuusay sheeko ayaan kusoo xasuustay. sheekadaas walaalayaal waxay ahayd nin la dhaho Abu Ras. 50 sano ka hor ayay dhacday. wuxuu ku noolaa wadankan Sacuudiga magaalada Riyadh. ninkaas Allah subxaanahu wa tacaala hanti ayuu ku manaystay, guryo waaweyn ayaa la lahaa. taajir meesha ugu dambeysay ayuu ahaa, yacni guryo badan oo waaweyn ayuu lahaa, meelo badan ayaa u kiraysnaa uu leeyahay. laakiin hal dhib ayuu qabay. dhibkiis waxay ahayd bakhaylnimo meesha ugu dambeysay ayuu taagnaa. guriga markuu soo galo haddii koronto shidanta waa lasii diminaya, muraxadda lama ogola, leer lama daari karo. oday bakhayl ahaa. waxaa kaaga sii dara caruurtiisa, yacni suuqu subaxda uu ka lahaya wuxuu usoo gadaya madax iyo mijo. waa nin taajir Allah subxaanahu wa tacaala lacag buu siiyay, laakiin wuxuu rabaa inuu bixiyo 5 riyaal un meelahaas inuu bixiyo ayuu rabaa. marka suuquu tegi madaxii iyo mijii iyo waxyaabahaas wax ugu raqiisan ee suuqa yaala ayuu usoo gadaya. caruurtiin waxaan ma rabaan wax cuntada way kasoo horboodo maalin kasta loo keenayo. odaygu u sharaxay wuxuu leeyahay aabe madaxa 2 indhood ayuu leeyahay, carab ayuu leeyahay, dhaga ayaa ku yaala, waa maskaxda ayaa ku taala, waa cunto meesha ugu dambeysay. yacni wuu ammaanayaa, يعني حيسين iska khaldan weeye kale ugu amaani. caruurtan wax kale ma haystaan oo way cuni. waxaan ku dhahay gabadha saabuun fiican, yani guriga saabuun fiican ma taalo, marisa la iskaga qoystaa, ciyaalka jirkooda waa go'ay. bakhaylnimo laasta ayaa la tagay, bakhaylnimo meesha ugu dambeysay ayuu ninkaas maraya. maalin maalmaha ka mid nin ayuu ka rabay kiro, kadib ninka uu soo waayay masaajidka ayuu soo galay, waa u fariistay. niman u socday meel waliimo ah oo u socday casumaad ayaa soo maray. marka midkii yani dadka casumayay ayaa dhahay ninkan iskaga daraa. wuxuu dhahay nakeen meel casumaad ayaan u soconaa, kaalay wax nala socon ayuu ku dhahay. runtii aad iyo aad buu farxay. asagu waa iska sabgaado, yani cuntooyin khatar ma cuno, kolley asagu unbaa iska mamnuucay. waa u baxay marka ninkii ayuu raacay. ninkii markuu raacay oo gurigiisa galay, runtii aad iyo aad ayuu la yaabay. dadki ayuu weydiiyey, wuxuu dhahay de ninkan ma ahli sacuud buu ka dhashay, ninkan ma amiirba? waxay dhaheen maya. waayahay ma tijaarta ugu waaweyn, yani ganacsadayaasha ugu waaweyn ba? waa maxay sidan? wuxuu la yaabay gurigaas u sharaxan yahay, fadhiga yaala, baakinada, yani nolosha guriga ka jirta ayuu la yaabay. ninkii ayuu u tegay, wuxuu dhahay niyahow amiir miyaa tahay? waxau dhahay maya. maxaa tahay? ganacsadayaasha ugu waaweyn miyaa tahay? maya. maxaa niyo sida lacagtan waxaan iyo marka xagee ka yimaada wax ii sharax buu dhahay. wuxuu dhahay niyahow aniga mid baan sameeyaa buu dhahay, waxaan fiirsadaa buu dhahay dadka taajiriinta ah, kadib markuu mid ka mid a iyaga dhinto xaaskoodii ayaan shukaansadaa, kadibna waan guursadaa, dee wixii uu ka dhintayna anaa u hara. marka hadda 3 nin oo taajiriin ah xaasaska ay ka dhinteen ayaan qabaa. mid afraad ayaa jirto oo aan sugayo inuu dhinto. waa mid la dhaho Abu Ras. waa mid bakhayl oo inkaar qabaa, marka lacag iyo hanti badan ayuu keedsanayaa. insha Allah asaga ayaan sugayaa inuu dhinto, kadibna qoftiisa ayaan ku afreysanayaa. ninka laga sheekeeyo waa ninka meesha taagan, yacni waa uu la yaabay. kadis ayuu ku noqotay wax uu maqlay. waa uu baxay, taksiga ugu horreeyey ayuuna raacay. noloshiisa dee muuna raacin taxi, oo lacagta taxiga uu ka bakhayli jiray, lug ayuu magaalada ku wareegi jiray. marka maalintan taxiga ugu horreeya kasoo baxa ayuu raacay. wuxuu uu tegay suuqa, wuxuuna soo gaday alaabo iyo raashin iyo saabuuno, shaambooyin, baraafuuno, go-yaal cusub, cuntooyin fresh. reerka odag way necib yihiin markuu yimaado un qaylo iyo korontaha la dimi iyo yani korontadii sii dimin oo kan yaa la shidin iyo waxaan yaa la samayn iyo amar unbuu la soo gelayaa. marka ciyaalka iyo reerka aad bay u necib yihiin. kadib
odayga guriga ayuu yimaaday yacni xaaskii waxaan ay aragtay waa la yaabtay odagii maanta gaari wato oo dee gaari la yimaaday guriga oo alaabo soo dejinay alaabahii ayuu soo dejiyey alaabo cusub baraafuuno saabuuno shopping ayuu nooc cuntooyin fresh ah waxyaabo badan ayuu keenay reerkii oo dhan arrinta yaab ayay la noqotay dee xataa xaaskiisa sariirta uma gogoli jirin habeenkii way soo qubaysatay gurigiiba carfisay sariirtii bay gogashay ciyaalkii dhaxanta way la yaaban odayga isbedelkiisa xaaskiisa wuxuu ku dhahay bil kasta intaas yani mushaarahaan u leedahay hebel intaasi ciyaalkeyga hebelna intaasi hebelna intaasi wuxuuna isku dayay inuu reerkiisa uu ka farxiyo inta uu la joogo hadhow intay ku farxi lahaayeen marka uu tago because haddii ilo reerkoo dhan waxay taagayn ilo hal mar naga dhinta hadduu mar dhinto yani hantidan iyo waxyaabahan ayaan ku raaxaysanaynaa marka sayl u dhicin markaas wuxuu ku fakaro inuu reerkiisa uu ka farxiyo nolol farxadla uu la qaato inta uu nool yahay waxba una dabdhigin marka walaalayaal waa mid aad iyo aad u wanaagsan in faamiligeena yani aan faamiligeena ka farxino laakiin laguma dhihin saana noqo laguma dhihin waa inaad san ahaataa oo aad isku daydid inaad akoon yeelatid si aad berri ka maalin ugu baxsatid ganacsina aad ugu abuuratid nolol wanaagsan aad ugu abuuratid marka videoga hore waxaan kaga hadlayna waxay ahayd uun yani bakhayl noqo yani wuxuu dhan lacagtoo dhan reer ka qari kuma dhihina waxaan uga hadlayna waxay ahayd inaad keed yeelatid oo lacagtaad yani mishaarka ama waxa kusoo gala 10% 5% intaad ka awoodid markaste aad keed garaysatid si aad berri ka maalin ugu baxsatid haddii aad fursad u heshid inaad ganacsi yar ku abuuratidna aad ganacsi yar ku abuuratid maxaa yeelay mishaar aad qof ka qaadanaysid runtii meelna kuma gaaraysid